bulsho walba oo horumarta waa ta ilaalisa taariikhdeeda, dhaqankeeda iyo hidaheeda. maanta waxaan ku sugannahay mudan lagu maamuusay halgamaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo ka mid ah halgamayaashii Soomaalida ee u soo halgamay taariikhda ee bulshada Soomaaliyeed. Wala dib u milicsan taariikhdii kala duwan ee sayidku Soomaaliya. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu noolaa intii u dhaxaysay 1856 ilaa 1920. wuxuu ahaa aasaasihii dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee la dagaalamayay gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Itoobiya ee ku soo duulay dhulka Soomaalida. wuxuu ku dhashay deegaanka Sacmadeega ee u dhow magaalada Buuhoodle sanadku markuu ahaa 1856. Carruurnimadiisii wuxuu bartay diinta Islaamka isagoo barashada Qur'aanka bilaabay 7 jirkiisii. Dhallinyarnimadiisii wuxuu waxbarasho diimeed u aaday magaalooyinka Harar iyo Muqdisho. wuxuu sidoo kale aaday xaramka iyo magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama. dabayaaqadii qarnigii 19aad ayuu bilaabay halgan uu kaga soo horjeeday gumaystihii shisheeye. wuxuu dhisay ciidankii daraawiishta kuwaasoo dagaalo badan la galay Ingiriiska iyo xulafadoodii. halgankaasi wuxuu socday in ka badan 20 sano, waxaana daraawiishtu galeen dagaalo fara badan oo taariikhda galay. wuxuu noqday sayidku hogaamiyihii ugu horreeyay ee lagu weeraray diyaaradaha dagaalka taariikhda Afrika. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu sidoo kale ahaa abwaan iyo suugaanyahan. gabayadiisana wuxuu adeegsan jiray dhiirigelinta halganka iyo difaaca diinta iyo dalka. dalka malihid aniga ku yiri doora weynaa daliilkii rasuulkii anaa doonayo helay anaa diiday maanta lahaa deeqani oo sayidka waxay dawladda Cusmaaniyiintu u aqoonsatay inuu ahaa hogaamiyihii ummadda Soomaalida. ugu dambeyn wuxuu sayidku geeriyooday 22 Diseembar 1920 isagoo ka mid noqday hogaamiyaashii ugu caansanaa ee taariikhda Soomaalida soo maray.